Turkiga waxa uu Soomaaliya u soo diray ciidamo badda ah oo dheeraad ah kuwaas oo la sheegay inay qayb weyn ka qaadanayaan qorshaha guud ee la shaqeynta ciidanka dowladda federaalk Soomaaliya ee dhowaan loo soo tababaray iyo ciidamadii hore ee badda ee diyaarka ahaa. Ujeedku waa in laga hortago wadamada fara badan ee doonaya in ay dibadbaabiyaan xaaladda guud ee dhanka shidaalka Soomaaliya iyo kheyraadka kale ee ku jira dhanka badda, waxaana ujeedadaas uu yahay sidii diiradda loo saari lahaa guud ahaan dhaqdhaqaaqyadaasi guud ee socda. Ilo wareedyo kala duwan ayaa waxay dhanka kale warbaahinta Xuraansi u sheegeen in saacadihii u dambeeyay ay socdeen isku dayo kala duwan oo ay doonayaan xubnaha dowladda federaalk Soomaaliya in diiradda ay saaraan sidii arrimahaas oo idin loo gaari lahaa ujeedada ama hadafka weyn ee la xiriira. Sarkaal sare oo ka tirsan ciidanka badda Turkiga waxa uu tilmaamay in amarka ay kaga dambeynayaan dowladda federaalk Soomaaliya ciidamadana ay la howlgeli doonaan, sidaasi awgeed diiradda la saari doono qaabkii loo soo afjari lahaa guud ahaan dhaqdhaqaaqyada siyaasadeed ee ka socda dhanka badda Soomaaliya. Wadamo fara badan oo kuwa reer galbeedka u badan ayaa doonaya in diiradda ay saaraan in ay diidaan qorshe walba oo Soomaaliya ay ku gaari karto dhaqdhaqaaqyada guud ay ka doonayso in ay diiradda ku saarto soo saarka shidaalka iyo macaadinta kale ee dalkeeda ku jira. Xukuumadda Ankara oo in badan ka shaqeynaysa arrimahaas iyo qaabka looga hortagi lahaa ayaa ilo kala duwan waxay tilmaameen in saacadihii u dambeeyay ay socdeen dhaqdhaqaaqyo guud oo la xiriira dhanka howlgallada dowladda Turkigu ay doonayso inay ka sameyso badda Soomaaliya. Ciidamada iyo saraakiisha Turkiga ayaa dhowaan sheegay in qayb weyn ay ka qaadan doonaan qorshaha sugidda guud ee amniga Soomaaliya, iyadoona dowladaha Soomaaliya iyo Turkigu ay iska garab siin doonaan arrimahaasi iyo sida loo gaari lahaa. Tallaabooyin hordhac ayay qaadeen ciidanka dowladda federaalk Soomaaliya ee dhanka dhulka ka howlgalaya, iyagoona u dhaqaaqay deegaano dhaca labada shabeelle ee caasimadda uga baxa labada dhinac, iyadoona ujeedadu uu yahay sidii ay u gaari lahaayeen deegaanada la doonayo in amniga guud laga sugo. Magaalada xeebeedyada iyo deegaanada kala duwan ee gobollada dalka waa meelaha ugu badan ee indhaha lagu hayo, iyadoona dowladda federaalk Soomaaliya kol hore ay heshay diyaarado qomatiga u kaca iyo kuwa kale militariga, markaase waxay doonaysaa in ay hesho qalab kale iyo fursado kala duwan oo arrimahaas ay ku gaari karto. Xaqiijinta dhacdooyinka kala duwan ee gudaha ku saabsan oo inta badan ay ku mashquulsan yihiin mas'uuliyiinta dowladda federaalk iyo kuwa Turkiga, waxaa markan soo baxaya warar sheegaya in ay jiraan dhaqdhaqaaqyo siyaasadeed iyo kuwo ciidan oo dhanka badda ah si diiradda loo saaro wax walba oo la xiriira qaabka ugu fudud arrimahaasi loo gaari karo. Saraakiil ka tirsan sirdoonka Turkiga waxay sheegeen in dhowaan galbiskii madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ay ugu soo sameeyeen dhanka iyo magaalada Muqdisho inay ka tarjumayay qorshaha iyo cilaaqaadka ka dhexeeya labadan dowladood, iyadoona aanay jirin ilaa haatan dadaalo kala duwan oo wakiilada kala duwan ee beesha caalamka ay qaadeen oo la xiriira in dowladda federaalk Soomaaliya in la duldhigo xujo adag oo ku aadan in qabsoomidda doorashooyinka dowladdu ay ka hadasho, sidaasi awgeedna aanay suuragal noqon karin in wax walba xilligan la faahfaahiyo. Sarkaal sare oo ka tirsan dowladda federaalk Soomaaliya ayaa dhankiisa waxa uu tilmaamay in howlgallada guud ee badda iyo bariga ay weheliyaan dhanka iyo dadaalo kala duwan oo lagu garab istaagayo ciidamada qaybahooda kala duwan ee Soomaaliya. Wararkii u dambeeyay waxay sheegayaan in saacadihii u dambeeyay ay socdeen dhaqdhaqaaqyo guud oo arrimahaasi ku saabsan, iyadoona saraakiishii mas'uuliyiintu ay dhanka kale hoose ka xariiqeen in ay wadaan isku dayo kala duwan oo arrimahaasi la xiriira. Xubin firfircoon oo ka tirsan dhanka iyo dowladda federaalk Soomaaliya waxa uu tilmaamay in dowladdu ay wado qorshooyin waaweyn oo qaarkood laga hordhacayo, waxaana waxyaabaha laga hordhacayo ka mid ah qoryaha meelaha fogfog loo adeegsado in lagu duqeeyo oo ay wataan ciidan ka tirsan kuwa commandoska Gorgor ee waddanka Turkiga uu tababaray, taasoo keenaysa in ciidamadan ay si buuxda ugu noqdaan ciidanka dowladda federaalk Soomaaliya. Waxaana wararka sidoo kale intaa ku sii darayaan in ay jiraan mas'uuliyiin ka tirsan dowladda federaalk Soomaaliya oo la filayo in qaarkood xilay hayaan iyo sidoo kale kuwa xilal kala duwan u soo qabtay. Sidoo kale waxaa jira warar iyo warbixino kale oo sheegaya in dhaqdhaqaaqyada siyaasadeed ee socda yihiin kuwo lagu ogaanayo dhammaan arrimaha ku aadan xaqiijinta soo saarka shidaalka iyo macaadinta kale ee Soomaaliya. Dhulka Soomaali galbeed
iyo sidoo kale dhulka NFD ee Soomaaliya ka maqan ayaa loo arkaa inay yihiin dhulka ugu ballaaran ee dhanka bariga marka la eego howlgallada laga sameynayo waa dhanka shidaalka iyo in macdinta kale laga soo saaro. Laakiin waxaa jira xujo siyaasadeed oo ku aadan in Kenya iyo Ethiopia oo ismaamuladaasi si xooga ku jooga ama si xooga raba inay u qaataan in ay sameeyaan dhaqdhaqaaqyo kala duwan oo culeys ay ku saarayaan bulshada halkaasi ku sugan si looga hortago isku day walba oo arrimahaasi la xiriira. Turkiga ayaa horey u tababaray ciidamo commandos gaar ah gorgorrida iyo ciidanka booliiska gaarka ee Haramcad, kuwaas oo markan ay ku soo biri doonaan ciidamo cusub oo dhinaca cirka iyo baddaba loo tababari doono, iyadoona dowladda federaalk Soomaaliya sheegtay in dhaqaalaha ku baxaya ciidamadaasi yihiin kuwaana xilligan dadka culeysan karin maadaama walwal uusan ku haynin marka la eego qorshaha ballanqaadka madaxweynaha Turkiga Rajab Tayyip Erdogan oo ah in dhanka hawada iyo badda Soomaaliya ay soo xiri doonaan. Wixii warar iyo dhacdooyin ka soo kordha arrimahan waxaan idinku baahin doonaa channelka iyaga.